barqa wanaagsan asxaabi sidaa u dhantihiin fadlan haddii tahay daawashadaada kugu horeysa channelka subscribe inoo saar. Intaa kadib xalay wixii United ku dhacay qof kasto uu arkayay 26 daqiiqo 4 gool in lagaaga dhaliyo waa wax shay ceeb ah. Cidna ma filayna xalay United laga badan ismile at least waxaa la isdhaa barrage ama inay badiso, laakiin 26 daqiiqo waa impossible oo wax macquul ahayn. Sidoo kale Bayer Leverkusen oo iyadan gool laga sugayay in ayadoo gurigeeda joogto laga badiyo. Marka sida hore lagu sheegay kooxihii yaryar sanadkan aad iyo aad isku soo adkeeyeen, waxaaba looga baqaaba kuwa weynaa waa aragteen. Marka bishan iyo bisha ku xigta waxay u baahan tahay ka fiirsi aad u badan kooxaha in lagu sameeyo assessment ama qiimeyn lagu sameeyo qaab ciyaareedkooda iyo siday u kala awood badan intaba. Laakiin hadda lama saadaali karo, horyaalkii ayaa cusub. Marka annagana tii hore aan ugu programsan kooxihii la iska garaaci jiray weli lagu programsan, laakiin sanadkan wax walba way isbedeleen soo maaha. Marka wax walba way isbedeleen, marka aan dul qaadano. Aniga idin hadla xalay $70 ayaan khasaaray. Videogan kan ku xiga ayaanan idinkula wadaagi doono, waan arki doontaan. Marka marna waa la faa'iido marna waa la khasaaro, waxaan waa nasiib. Marka intaan qiimeyn ka sameynayno oo bishan iyo bisha ku xigto kooxaha sidii u kala awood badan yihiin aan u kala xaqiijin doono. Marka hala dul qaatay yaa la nijabin. Maanta events ko 14 kooxood oo odds-kun uu yahay $58. Haddii khasaare kala timaadan waxaan isku dayi doonaa inaan odds-ka yareyno oo wax macquul ah aan ka soo qabanno. Laakiin inta ka horeyso intaan awoodahooda aan qiimeyn ku sameynayno hala dul qaato. Waa mahadsantihiin. Koodkina waa kaas. waa mahadsantihiin.